waxaa jira cunaqabatayntii la saaray deegaanada Jubbaland saameyn ka dhalatay oo shacabka la ildaran yihiin. hal tusaale marka la bixiyo gaadiidka ka bixi jiray magaalada Kismaayo oo xagga cirka ah oo doobley tagi jiray oo $80 qofka ku raaci jiray maanta waxaa looga baahday $240 inuu bixiyo 6 saacadood oo safarna uu galo. arrintaasoo dadka inta heli karto oo awoodi karto ay yartay sidaa darteed waxaa ka dhashay dhibaata ka dhalatay inay dadkii jidka maraan cadowga dhibaateeyo gabdhihii umalayay oo lagula soo caray baabuurta ay dhaxda ilmihii ku dhintaan ayaga ku dhibaatoobaan arrintaas oo lagula xisaabtami doono hay-adaha sharcigan aan u gudbin doona ciddii cunaqabatayntaa saartay oo dowladda federaalka Soomaaliya oo xaqdarrada ku samaysay shacabkii doortay u banaan baxay soo dhaweeyay. arrimaha abaaraha dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland iyo caalamka kaleba siday isu gargaarsan jireen loogu gargaari jiray dadka dhibaataysan haraadan xoolihii ay dhaafayaan yaan ka codsanaynaa in gacan buuxda ayagana ay ka geystaan. ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed in ay ixtiraamaan wada noolaashaha iyo wada jirka dadka reer Jubbaland inay soo celiyaan doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa inay ogaadaan Soomaaliya inay shakhsiyaadna lahayn groupna lahayn Soomaali baa leh xeer iyo nidaam ay ku heshiisay ku wada joogtaa inay ka ayagoo ixtiraamayo ay doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa soo celiyaan. ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jubbaland in wixii lagu heshiiyey oo ahaa nidaamka federaalka ay u howlgalaan waajibaadka iyo shuruucda dalka u degsan ay nagu gacan siiyaan. waxaan ugu digaynaa fargilmaha socdo kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hadda la abuurayo taasoo dhammaantood ah duminta nidaamkan jira duminta dadkan wada nool in la dhibaateeyo la kala diro cid kasta oo ku lug leh inay dib ugu baxdo haddii kale cawaaqibka ka dhasho ay mas'uuliyaddeeda iyada qaadi doonto reer Jubbalandna ayagoo dowladooda iyo shacabkooda iskaashanaya ay isdifaaci doonaan nidaamkooda meel fog baa laga keenay waqti dheer bay ku qaadatay qiimo dhiig iyo dhaqan iyo dhaqaale leh buu ugu fadhiyaa ma sahlano in damac shakhsiyeed loo burburiyo. marka waxaan ugu digaynaa dadka ku lugta leh fargelintaas dib noo celinaya na burburinayo calanka iyo astaantii tasuurkan samaysanay wasaqaynayo oo baabiinayo inay ka joogaan haddayna ka joogin cawaaqibka ka dhasha inay mas'uuliyaddeeda qaadanayaan. sidaasi la mid ah waxaa xaqdarro ku xiran wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo nin mas'uul ah oo xasaanad lahaa oo laga afduubay garoonka Muqdisho in badan aan ka hadalnay maalinta la qabtay ilaa maanta dhexdeeda aan cadaalad helin asagana waxaan ugu baaqaynaa dadka ku lugta leh qabashadiisa ilaalinayo xaqdarrada ku haysto inay dib iskugu noqdaan oo xorriyadiisa iyo sharaftiisa u soo celiyaan.